waayahay maanta waxaan idinka sheekeynayaa sheekadii ninka kale wax ka amaahday beri baa waxaa jiri jiray nin baa jiri jiray nin saaxiibkiis kalena wuu jiri jiray markaa ninkii saaxiibkii baa dhoofi rabay oo dal kale uu rabay inuu tago sidaa daraaddeed ninkii saaxiibkiis wuxuu yidhi waxaan rabaa in biro aan kuu dhiibo biro waaweyn inaan kuu dhiibo intaan dhoofayo hadhow markaan soo laabto waxaan rabaa in aan kaa qaato ninka wuxuu yidhi haye okay ninka wuu dhoofay wuu baxay wuu tegay yaasmiin way garanaysaa sheekada saad ku qoslaysaa sidaad adiga farxata way garanaysaa okay way araad inka sheekadaan dhamaystira haddaba dad baana garanayn xamse ma garanayo sidaa daraaddeed waan ka sheekin xamsana wuu garanaya way kadib markaa waxaa dhacday ninkii wuu dhoofay ninkii markuu dhoofay markaa waxaa dhacday inuu soo laabtay markuu soo laabtay ayaa ninkiiba wuxuu ku yidhi walaal waxaad isiisaa birihii aan ku dhiibtay wuxuu yidhi waan ka xumahay wixii dhacay haddaad ogaan lahayd buu yidhi oo maxaa dhacay buu yidhi wuxuu yidhi bahalkii maqsankaan geliyay buu yidhi meel maqsan weyn ayaan geliyay buu yidhi birihii kadib jiirun baa yimi show maalin walba wuu cunaa biraha waxaan ugu tegay bir yaroo intaa leegoo ka hadhay oo fartaydaas leeg oo ka hadhay ayuun baan ugu tegay oo dhammaysay markaasuu yidhi ma jiir baa cunay birihii dhanaan ogaa waaweynaa haa buu yidhi wuu wada dhammayn gamtay u joogsadeen buu yidhi bas buu yidhi khalaas hadday saa tahay waan iska samraynaa buu yidhi ninkii uu iska tegay uu iska baxay kadib ninkan khiyaamada samaynaya ee loo dhiibta biraha wuxuu lahaa isaguna dibi weyn buu lahaa ninkii kale wuxuu sameeyey maalin ka mid a magaalada intuu gurigii usoo weydaartay dibigii buu kaxaystay oo meel geystay ninkii khiyaanada sameeyey wuu raadiyaa dibigiisii uu waayey maalintii dambe ayuu 2 cisho kadib buu saaxiibkiis buu arkay markaasuu ku yidhi war dibigaygii baan waayey buu yidhi meel uu tegay alla buu yidhi maalin dhow anoo meeshan socdo buu yidhi ayaa dibigaagu iska socdoo weyn buu yidhi ayaa cirka waxaa ka yimi bahal shimbir weyn baa ka yimi kadib intuu qabsaday saacidihiisa u gelay ayuu la duulay cirka la tagay markaasa wuxuu yidhi war miyaad wareersantaa buu yidhi ma waxaa dhici karta shimbir baa intuu cirka ka yimaado ama ayaa dibigaygi weynaa qaadan karo la duuli kara markaasuu yidhi muxuu noqon waaya anigaba birahaygii jiirkii sooma cunin anigaba birahaygii sooma cunin marka way dhici kartaa inuu ninkii u xishooday wuxuu yidhi niyow khalad baan sameeyey raalli iga ahaw waan ku khiyaamay birahaygii meel kalaan dhigay waan kuu soo celinayaa adna dibigaygii ii soo celi sheekadan maxayna baraysaa yaasmiin maxayna baraysaa sheekadan inaan been la sheegin inaan been la sheegin xamse haye inaan la khiyaamin dadka oonan maxaa la yiraahdaa khiyaamo dadka loo sameyn waa maxay waxa la yiraahdaa qofka marka alaab loo dhiibto maxaa la yiraahdaa Soomaaliga maxaa lagu yiraahdaa amaanad baa lagu yiraahdaa qofka in amaanad loo dhiibtay haye amaanad xamse fariid marka sheekadii saasay ku maxaa la yiraahdaa ku dhamaanaysaa